بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كلنتي وعن oo wanaagsan meel kasta oo ay idin hantiba aan naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeena Dambaal TV oo alaaba si toos ah idinka yimaada studio-yada bariga Saudi Arabia gaar ahaan bariga Dammam hoyga ama studio-yaha Dambaal TV maanta waxa marti igula ah Cabdisalaan Maxamed Farax Cabdisalaan Hayden oo isagu safar dheer kusoo kala bixiyay deegaanada reer Khaatimo Puntland iyo waliba Somaliland daawadayaal maanta marka hore intaan barnaamijka furfurin Cabdisalaan maanta wuxuu xog dheer inaga siinayaa safaradii kala duwan oo ku maray deegaanada Khaatimo isagoo ka qayb galay beelo walaalaha oo heshiisiin loo sameeyay isagoo ka qayb galay cali masaarki garaad Cabdirasaaq garaad Soofe isagoo tagay safar gaaban ku tagay galowga oo laga siinay xogta uu halka kala kulmay waliba iyo xarig loogu hanjabay waliba la dhigay waraaqdii lagu xidhi lahaa magaalada Laascaanood isagoo inoo sheegi doona cidda xariga dabacday inay xidho wararkaas iyo warar badan oo faahfaahsan ayuu ina siin doonaa marka hore waxaad ku soo dhawaataa Cabdisalaan Dambaal TV waliba qaybtiisa bariga Saudi Arabia aad baan idin salaamayaa Cawil Cagaare bariga Saudi Arabia magaalada Dammam oo aan ku imi safar gaaban anigoo ka soo ficiltimay Soomaaliya ka imi soo maray halkii deegaankaygu ahay oo Maka Mukarrama ay ahayd aad baan idiin soo dhaweynayaa qoladiina saxaafadda aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseen bariga Saudi Arabia magaalada Dammam Cawil Cagaare aad baan kuu soo dhaweynaya waan ku salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan ma ahaan maleynaya markii koobaad aad studio-yaha lagu soo booqatay anaguna markasta waa kaaga mahadcelinaa markasta daawadayaal anagu waxaan isku daynaa deegaanada Khaatimo waxyaabaha ka cusub dadka u dhunta dolola waxyaabaha ka socda inaan mar walba idiin soo gudbino aynu u gudaanaa dhacna barnaamijkeennii iyo wareysigeennii ahaa xog waran iyo waxyaabihii uu Cabdisalaan kala kulmay deegaanada reer Khaatimo Cabdisalaan waxaad dortaa safar gaaban ku tagtay magaalada Laascaanood dadku aan waliba tegin magaalada fikrado kala duwan ayay ka haystaan magaalada markaad tagtay magaalo la haystaa ma dad shisheeyaa haysta mise dadka deegaankaas haysta mise lamaba haysto halka horta wareysi yar oo gaaban inaga sii بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عويل عقاري أبان كو سلام يا مرنبات لما صلحا أهل مسؤول دويسي بريق السعود اللي مقالة الدمام وأنا مركي لبادي مركي صلحا لا يتهي إنا ماركي كوبتاني مادو أنا وهرت مركو أغهر السفر تاقع دي عن كاغا ونمو waxaan ka baxay magaalada Maka Mukarrama 20 bishii December oo aan u baxay wadanka Soomaaliya taasoo ay kaliftay hooyaday oo leeyahay Nadiifa Xaaji Maxamed oo ku geeriyootay magaalada Laascaanood xariisya raxmad Ilaahay ha siiye marka sababta aan u baxay waxay xaajiyada ahaydteeda iyadoo markaan nool oo qayla dhalaantii iga timi intii aan diyaar garoobay dad ehelo ila joogay dibi dhiceed adigu iskaantiintaas intaanan bixin asiisi aan faraydkii u diyaar garoobay ayay geeridii alla tiri ilaahay naxariista raxmada siiyo intaa markaan ka gudbo haddii su-aasha aan u weydiisay aan usoo noqdo Cawil Cagaare runtii marka aan eego magaalada Laascaanood lama haysta dhulbaanta is haysta markaan xaqiiqada ugu daadego dhulbahanta is haysta kan lagu soo diraya ee maaragtay CID ama jaajuuska ama yidhi gudoomiye gobol baanay ha ahaato maxay ahayto kuwa markaa haddii wax jiraan lagu soo dirayo ee isku halaynaya mataqaana awoodda SNM runtii awoodda SNM isku halaynaya laakiin waxa weeye waa un kuwa marka ugu horeysa hawsha iyo dhibaatada iyo maaragtay hadalaada iyo dhibaatada horta u keenaya
waxa weeye waa dhulbahanta lagu socmaalay yaan taa kaaga sii gudbo dhulbahanta saddex qaybood weeye xaqiiqada markaan ku sheego anigaan been ka sheegay nin xalaala oo diyaar u ah in uu iska kiciyo sharafkiisa iyo magaciisa maalkiisa iyo naftiisa iyo gabadhiisa ilaashado saddexda ay noqotay mid waa dayuus midna waa maxaa la yidhi oo waa nin bahdarano maxaa la yidhi midna waa nin firfircoon oo diyaar u ah ya in uu maaragtay uu waxa isagu inuu tashaday aan loo talinin taas orta taasaan kugu sheegay taa markaan kaaga sii faadeeyo xaqiiqada waxaan maray wadda dheer waddadaa waxaan ka bilaabay carra dhulbahante guumays ilaa buuhoodle guumays ilaa saaxdheer ilaa buuhoodle ilaa la caasimada buuhoodle baan ka bilaabay ummad kala duwan iyo wejiye kala duwan iyo horgal mid walba waa is aragnay marka arrimahaas waa sidaa haddaan soo koobo dhulbahante isagaa is haysta lama haysto ka horgalka la yidhaaho haddii ciidan lagu saarayo goobta boqortooyada saaxdheer ciidanka u horeeya waa horgal waa dhulbahante haddii lagu saarayo karinta waxa weeye ciidanka u horeeya ee lagu saaraya waa horgal haddii lagu duulayo buuhoodle ka lagu duulayo loo saarayo waa horgal magaalada werwed haddii lagu duulayo waa horgal adigu markasta waxa weeye ninka loo adeegsanayo ninka loo adeegsanayaa haddii aada iga weydiisay waa horgal markaa miyaan aan dhulbahante ahayn taas waa sidaas waan garnay cabdisalaam intii aad ku sugnayd magaalada saxdheer oo matalan baa meesha ugu sukaysa ee maamulka khartumo ka taliya weli intaad ku sugnayd weeraro kala duwan mid kusoo dhacay horta riyow magaalada waxaa ka jirtay markii aan tegay olaad cayrado aan labadaba kasoo jeedo ayaa ka jiray oo aan ahayn olaad weliba wax dhiba badan geysatay ah olaad is-afgaran waa iyo aan la helin raggii maaragtay xalaasha ahaa ee nin garboodkii iyo maxay ahayd raggii kale hagi jiray iyo salaadiin la-aan maaragtay loo maaragtay la sadiqi waayo oo salaadiin sharaf leh oo magac leh oo aad garanayso soo jireena way jira laakiin raggii wax la qaban lahaa ee maaragtay lagama maarmaanka ahaa ayaa meeshii aan ka maqan oo qaybino waxay jirtaa garoowe qaybina waxay jirtaa somaliland marka qaybta markaa soo jeegtaa runtii qayb sharaf iyo magac huwan weeye waa qayb doonaysa inay difaaca iyo mataqaanaa sharafkooda iyo gabdhahooda iyo taladooda inay si fiican u midaystaan u qaatan marka anigu markaa waxaan tegay goob markaa arrimaha xasaasiya baan la kulmay arrimaha waxaan ka qayb galay arrimo badan oo mataqaanaa laba beelood oo isku dhacay oo cayladaha ah oo ay ka dambeeyeen adiga lumi shirkadaas waa lasoo afjaray nabad iyo wanaag baa lagu soo afjaray markii nin garboodkii iyo suuqi iyo garajaa la soo afjaray waxaa uga dambeysay culimada ragga aan kaaga magacaabee uu hogaaminayey maxamuud xaliike ninka aadan weli cabdi xuseen niman maaragtay rakaro oo ay gacanta ku qaybka cabdigaraad ka soo jeeday culimadii hore oo isku jirahayd oo mid kasoo maaragtay loo xuray oo aan cidnaba uu maaragtay ka mid yahay nin yaa sheekh axmed nuur oo u dhashay gobolkaa ogaadeymiya laakiin reer buuhoodlaa nin abaskuura nin fuqshiniyaho shiika ka maaragtay tujiyaha kahuta uu ka mid yahay raggaasaa gacanta ku qabtay dee waa lagu guulaystay si sharafa iyo si wanaagsan iyo si barwaaqa aba aad baa loo soo safarkaas kadib ama safarkaa kadib waxaa weeye garaadka guuda garajaca garaad cali bishii janawari 15 wuxuu ii sheegay oo ii cilaamiyey in uu ka dhacayo caleemasaarka cabdirasaaq garaad soofe magaalada la yidhaaho buuhoodle marka waa u amabaxay
amarkaana waa isiiyey kadibna annagu 13 January ayaa annaga oo badan oo salaadiin badan ay la weeriso qaar naga dilayeen oo ayaan halkaa ka ambabaxnay waxaa ka mid ahaa ugaas ka ninka la yidhaha ugaas Faarax Dheere yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa garaad Cabdisalaam baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa garaad Mashqara ka mid ahaa garaaska kale oo isna aan magaciisa runtiiga oo kale waa ka mid ahaa salaadiin iyo odayaal iyo nin garbood badan 11 baabuur baan magaalada Saxdheer kaga ambabaxnay inkasta oo ay nala socdeen saraakiisha khaatumaysteen goobtaa joogay wax naga horreeyay wax naga dambeeyaba ay lahaayeen baarlamaanka ka mid ahaa qaybtii iyala tagtay madaxweyne ku-xigeenka Cabdalle Cagaloolada isna ka mid ahaa raggii goobtaa ka ambabaxay isna magaalada waxaanu u baxay waxaanu sii maray magaalada Dhakeyngeeyo magaalada Ballecad Xamar Lagu Xidh oo iyana 2 qolo oo eheli xoogaa iyana dhibi kala gaadhay oo aanu u reebnay 3 caaqil oo uu ka mid yahay caaqil Cali Xirse Cawd nin la yidhaaho isna nin la yidhaha Daahir caaqil Daahir nin la yidhaha Cali Nuur 3 nin oo iyana 2 nin caaqil la tahay nina yahay afhayeenka Dhuqaasha halkaasaanu ku reebnay waxaanu mataqaanaa aanu uga tagno garaadku amarku bixiyeen 3 nin u haraan si arrintaa ay wax uga soo afjaraan taasaanu maaragtay markii aanu ka ambabaxnay magaalada la yidhaaho Ballecad Xamar Lagu Xidh meesha la yidhaaho Qararo intaasna waxaa caleemo qoyan baa nalagu soo dhaweynayay magaalada Buuhoodle markaanu kusoo dhawaanay muddo aan u maleynaya inay 5 kilomitr ilaa 6 kilomitr ka hor ama 10 kilomitr haddaan qiyaasay ayaa nalaga horyimin ummaddii reer Buuhoodle oo caleemo qoyan iyo maaragtay garaadkuna noo horeeyo security-ga un baa ka horreeyey aniga iyo garaadku isku gaari baanu saarayn halkaasaanu tagnay si wanaagsan baa nalagu soo dhaweeyey si sharaf leh waxaa nala wadana magaalada nala dhex mariyey magaalada caleemo qoyan iyo ubaxyo iyo hambalyaa nalagu soo dhaweeyey waxaanu tagnay goobtii garaadka loogu talagalay in maaragtay lagu soo dhaweeyo marka dawarka goobtii marka uu ka dhacay caanashubka ama maya goobtaas waqti dambe maanu ka horreynay goob kale oo qasara oo markaa lagu kala ragga soo dhaweynta lagu soo dhaweynayo oo aan aada u filayo inuu noqon doono qasarka uu ka degan yahay magaalada Buuhoodle garaad Cabdirasaaq garaad Sooxe ayaa lagu soo dhaweeyey halkaa waxaa ka socday ciyaaraha hidiya dhaqanka waxaa ka socday mashxarado badan waxaa ka socday soo dhaweyn waxaa ka socday mataqaanaa gabayo halkaasaa nalagu soo dhaweeyey halkaasaa maaragtay nalagu soo dhaweeyey halkaasaa markaa biyihii iyo sharaabkii iyo maxay ahayd ifintooyinkii nalagu daadinayay na geeyey markii aanu muddo joognay halkaa oo aanu si wacan ugu mustaraxnay oo ku nasanayn nin walba hoygii fanaadiiqii iyo hogaaladii aan nalagu dejinay ayaa naloo maalin labaadii waxaad gasheen caleemo saarkii maalin labaadii halkaa maalintaanu soo joogay maalin saddexaadii baanu galay 15 January 9 subaxnimo ayaanu ka baxnay oo ambabaxnay goobta caleemo saarka meeshii caleemo saarka maamulo badan Puntland Somaliland idinkoo khaatuma ah dowladda federaalka maamulo badan ba meeshii isugu yimid sida idaacaduhu kusoo tabiyeen niman badan oo iyagu wax sheeganayo aad muddo inay cid durayaan aada moodo in ma garanaysaa meeshii lagaga baawarbatay baa idaacadaha ka muuqday meesha iyo caleemo saarku bal siduu u dhacay bal noo soo yarko horta caleemo saarkaasi waxa weeye waxaan soo koobi karay horta u yaraan 600 oo baabuur baa isugu yimi oo Land Cruiser iyo mid ma garanaysaa mid ciidan baa isugu yimi ummadaasna si kastaba ha la yidhaahee waxaa mayalka u qabatay nimanka golaha deegaanka ee khaatumaystay oo Soomaaliya ee magaalada Buuhoodle iyo guddigii loo doortay inay caleemo saarka ka shaqayso wejiyo badan waa jirtay oo wejiyo badan waa u muuqanaysay laakiin guushii iyo gobonnimadiiba waxaa qaatay khaatumaystay iyo raggii goobtaa joogay ee ahaa raggii
golaha deegaanka buuqooda oo aan siday ummadda u kala habeeyeen iyo siday ummadda u dhageen aan la soo koobi karin si sharaf iyo wanaagna runtii. marka waxaa leedahay caleemasaarkaasi si heer saraab u dhacay. caleemasaarkaasi wuxuu u dhacay si aan qiimo badan nin duda iyo nin sheekeeya waa arkayay oo anigu runtii ma arag ummad somaliland shaksiyadda somaliland ka tirsan oo waa arkayay shaksiyaad meesha jooga oo iyagu kasoo jeeday deegaanada somaliland mise deegaanada khaatumo. deegaanada khaatumo laba saddex nin waa iga muuqanay ninaan imaadanaado layaha baasha maxamed faarax waa ii muuqanayay goobta markii aan soo gaaray goobtana lagu soo dhaweeyey garaadka aanu nimi uu ii sheegay ninka darawalka u ahaa darawalka u ahaa nin layaha cismaan garasoofe oo ugu magacaaban wasiir ku-xigeen somaliland ama qolada sn baan ugu idhahay oo aanu isku family nahay baa ii sheego wuxuu hebello waa imanaya hebelkaasi ninkaasuu noqday marka waa ii muuqanayeen laakiin wax awooda iyo wax arrina iyo wax abaabulha ay ka qabsadeen ma jirin laakiin niman u dhashay gobollada waqooyiga oo dee meesha ka hadlay oo si asluubaysan iyo si arrin uun dee ixtiraam ku jirto uga hadlay waa ii muuqanayeen laakiin wax awoodaho ama ciidan ha noqoto ama mataqaanaa deni ma jiro waxa weeye marka waa ii muuqanaysa marka dee rag aflagaadooday ama rag durayana waa ii muuqanaya dee goobjoog baaban ka aha dee aad baahato inaan ku magacaaban dee waa ku magacaabay. waxaan u malaynaya halkaa kaga gudbanaado nin walba saxaafadu kala socday si toosa. si fiican ninkaad sheegta adigu tiri maadeer baana markii caleemasaarka uu soo dhamaaday waxaad noo sheegtay inaad lasocodda lagu soo noqotay in markaa la diyaariyay in lagu xidhaba adigoo markaa sanadkii horeyna soo dhaafay halkan aynu fadhinay dhabaal t v waraysi aan kula yeeshay adigoo dhaleecaynaya aflagaada uu sameeyey ninkaa baasha maxamed cadde jawaab aad u bixisay daraaddeed ayaa waxaa nooga sheegay in adigoo lagu xidhgaaday laascaanow. horta runtii waxa weeye raggu hadduu ilmaadeer yahay isuma ina buuxiyo aniga baasha waxaan u maraynayaa horena waan kuugu sheegay laba ninoo isku ehera baanu nahay isku caylad ah aniga baasha ilmaadeer baanu haddii aan kaaga warramo baasha garaad jaamac garaad cali oo khudbadda ku jira ayuu wuxuu ka soo kacay halkaa meelaho guruub ay ku fadhiyeen yuu ka soo kacay baasha caleemasaarkii waa caleemasaarkii markuu soo kacay xagga wuxuu u soo dhaqaaqay garaad jaamac garaad cali oo khudbaddiisii sharafka lahayd wata yuu usoo kacay xaggiisa anugu marka waxaan u qaatay niman guur oogah meesha waxaa loo kala fadhiisiyey salaadiin iyo cuqaal iyo ningarbood iyo qurba joog marka qurba joog aan ka mid ahay iyo rag maaragtay inta markaan eego barigan sacuudi arabia magaalada damaan ragaad ka garanayso aad weydiin doonto oo layaamaha ninka layaaho cabdiraxmaan mahdi xaaji faarax waa isdhinac danay ragga qurba jooga aan isdhinac degay oo kamid ahaa iyo rag kale mid layaaho doctor maxamed xesi ducaale oo marka horena reer qurba jooga reer ingiriiska ahaa dowladdan puntlandna mar wasiir ku-xigeen ka noqday isaga raggaanu iskuula fadhinay buu kamid ahaa cali shaah baa kamid ahaa rag noocaas baan isdhay markaa markii aan arkay ninkaasoo kacay oo xagga garaadka u jeeday baan idhi muxuu weydiin doonaa garaad ama muxuu u sheegi doonaa waan kasoo dabaka ninkaas markaa dibadda u baxay waana ka baxay sida la ii sheegeen anugu makama aqaani dadka nin kaloo laygu lahaa oo dhulbaanta oo qolada somaliland wasiir ugu magacaaban oo la igu sheegay layaa in hebel dawdan magaciisa saxaa ma aqaanin baa isna kamid ahaa ragga baxay baa lagu yiri markii uu dhaafay goobtii garaadku khudbadda ka jeedinayay garaadku guud isagaa caanaha ku shubay garaadka kadibna khudbaddana isagaa furay wixii ka dambeeyena markaa de dadkii un baa loo kala qaybiyey waxaa ku xigay madaxweyne ku-xigeenka khaatume state cabdillaahi cagawilaa ku xigay oo si aan caadi ahayn iyo sidaad uga daawateen runtii xafladda ama mashxaradii ama ummaddaas meesha isugu timi ee awoodda leh ay ugu soo dhaweysay ama sacabka u garaacaysa taasina taasay ahayd xadhiggii lagu diyaashay xadhiggaa la ii diyaariyey sida hadalka u dhigay
أنا يباشا معنا ولا حلو نين وهم عابا ولا بن أسلم أما ولا بن لكن قبل كعام بيكون على أول شيء شوقي أو اللي يلاهو هي ربنا أو عبقار كود كلام الصوت أي إلى شوقي عن أو عام فديره ذلك اللي عطاش برتيس يصوّع من ويقول لي باشا محمد عدي أياك دول إعلان كان الله ما بين شيء باشا محمد عدي وحكوا لي باشا محمد عدي وحنون هاي إلى هنا وأوجه أنا وأوجه هاي سيدك كل شيء أنا أقوله بصوّع نمكن لما يرى هاوي بريمين ويدقيستين وحالي نوعها نكاي وحولي شكل أن يقول يا شيء وحنا أهيين أم دليل أقانا معها وحنا أهيين الدنيا واللجين قبل كأيام كم عون باشا التلفون كان الدوري وحنا هو خصبي تلفون كا متشوش بعطاي معنا نسبة ذيك يا رومك أبغى هذا الكاكا سيمري ورومك إذا كلهم في التلفون كا نما ولا نهاي وانكقع سيدا درتي مركز دباشا كدين أدوه هذا الكيميكا وسوكا يقرون واي كدبنا نمكن لما يرى الحراميكي وعي وراح الله ويقول محاك كربتا جدا حيثا أدوه نمان اللي يرى ميشي تقولوا نمكن بياشا كشك إيه وشقارها وأن يسفكر أبوين كدبنا waxaa isoo wacay ninkaa la yidhaaho anwaan la yidhaaho maktab anxaad faahbaa isoo wacay wuxuu igu yidhi ninkaa waxyaalaha aan ka sii carooday waxaa ka mid ninkaasu wuxuu igu yidhi cabdisalaan waan xidhaya hana iigu iman markaa bal cali khaliif professor cali khaliifa soo daaya professor cali khaliif tan ka carooday waxaa weeye waan xidhayaa aduguna ha iigu iman bal markaa professor cali khaliifa soo daay marka anigu iskama xumi aniga baasha inaan abays qabanaaso laakiin madaxweynaha khaatimo professor cali khaliif inuu hadallada noocaasa ku yidhaaho hadha aad anugu raalli ugama ahay haddii isagu uu u shaqeeyo ama somaliland ama asar hadha inuu aflagaado madaxweynaha khaatimo oo ummadda khaatimo dooratay inuu aflagaado u geyso aad baan anugu raalli uga ahay ugama ihi waan ka xunahay waan ka xunay annaguna ilmaadeer baanu nahay ma kala macaashayno waa ay xidhi karaa oo dee askar snma waa iisoo diri karaa ama kuwa dee calooshoosa u shaqaystayaan laakiin dee waxaan ogahay wuxuus ogyahay inaanan ku raagi karin waayo ummadda ama madakada joogta madaqada laascaano hano ama ummadda qurba joogta hano ama ummadda sacuudi arabiya ku nool hano baashi markaa waxay noqonaysaa ninkaas markaa isaga wuxuu yidhi sharafkaaga ha ku waayan waa ninkaas waa nin ummad badan waa nin eheliyad badan haddii aad adigu in adeerkiina isqabatay aniguna inaan wax ka waaniya mooyaane inaan wax u geystay dee adigaaba ahaa inaan wax ka waaniye mooyaane inaan wax u geystay anigu runtii ma qabin laakiin waxaan is idhi maalintii dhaweyto 13 February diyaaradda aan ka raacay Hargeysa ee Djibouti ayuu la socday waan arkay anigu isna ma salaamin ama ma salaamin laakiin inuu san isagu yarkii baa dhici karta laakiin anigu si wacan baan u arkay waana la socday inuu diyaaradda la socday markuu ka degay markuu fuulayay waa la socday isagoo rag kale dee ay dhinac socdaan waa arkay marka waxa weeye aniguna wixii khalade uu ku samaynayo shacabkiisa khaatumo iyo shacabka dhulbahante iyo shacabka laascaano midna uga dibdhigi maayo kana joojin maayo wixii algaad ah iyo wixii wadahadal haddii wanaag dabcana waa la hadlaya haddii xumaan dabcana dee waxa weeye waxaan arkay isagoo home cable soo fadhiistay home cable oo meesha laga leeyahay aan aqaano intuu soo fadhiistay uu leeyahay in xuduudda lasoo xidho waxaan ka qabaa ma jirto dee taa weyitaan ka doonay maan ka hadlayay baasha laakiin annagu ehel baanu nahay shacabkiisa ilmaadeeradii walaaladii carruurtii uu dhalay carruurtii uu adeerka u ahaa kuwii ee walaalahayn idigoo waa wada socona khaatumaanu la wadana oo dhulbaantaanu wadana marka
taasay ahayd tii markaa waararka laygu soo gooyey habsalaan puntland waa tagtay waxaad sheegtay inaad xoogaa oo casuumada ka heshay somaliland oo adiga ka warramay khaatimada doodiga soo dhex maray howlo badan ka qabtay markaad ta guud ahaan dadka qofba wax buu aaminsan yahay ninka khaatimada aaminsan sagaalkanood markaad puntland tagtay somaliland dadku puntland ahaan dadku waxay dhahaan ehel baa tihi somalilandna waxay dhahaan waxbaa inaga dhexeeya xabad baa inaga dhacaysaa labada maamul keebaad is oran kartaa baaba dadka u dhowga bismillahi wadaniyow waa waxyaalaha aan u shaqo tegay bay ahayd inaan maaragtay garowbana tago hargeysana waan ka deg cilaanka amase dee wax ilaahay lagu leeyahay ku noqon in been laga sheego waa xaaraan shacabka puntland u dhashay magaca laleeyahay ehel baa been haddaanan ka sheegin wax dhiba kama ah wax dhiba laakiin ummadda u shaqaysa ee dirayska u sita iyo ummadda siyaasiga u ah akhlaaqiyaad marka la eego marka runta kuu sheego kuwa somaliland sheegta ayaa ka akhlaaq wanaagsan ujeeddo kasta ha ahaadeen inay ku soo dhawaystaan iyo wax kasta ha lahaa haddee huruufka marka aad tegayso jeekpoynada labada jeekpoynba waa huruufka iyo aflagaadada iyo wa iyo waxyaalaha aad baad uga caroonaysaa runta markaan kuu sheego baan waxaan isiri meesha eege oo balhada tag marka waxaa lagu yidhi war nimankaa wasiirada iyo wixii soo maray waxay halkaasi ku xiraysan yihiin oo niman aad arki karto ma aho way baqayaan oo de magaaladu ammaan ma aha baa laygu yidhi magaalada dawla weeye haddii aan puntland labada lugood kaga duubnayn khaatumo heerdhe somaliland ma sii joogteen aagga dhulka khaatumo oo dhulka waa gartay guntii iyo gunaanadkii halgan baad kusoo aragtay meeshii ka socda meesha maxaad markaa iyagoo kooban naga sii halgankaa ka socda waxaan ku rajo weynaa sida aan u ogaanay ama ragga aan ka imi ama aan soo dhaweeyey waxaan anigu leeyahay waan kuu horreysiyo waxaan ku yidhi 3 waxyaalood baa ummadda dhulbahante ama khaatumo ama gobollada khaatumo sool iyo sanaag iyo cayn ay ku dhex mid la yidhi maxaati oo iska bahdalan oo aan badnayn iyo mid diyaar u ah inuu mataqaanaa sharafkiisa iyo magaciisa iyo ummaddiisa iyo gabdhihiisa ilaashado iyo mid horgal ah oo dayuus ah waa dayuus waayo ninku hadduusan gabadhiisii iyo gurigiisii uusan ka yaqiiqin dayuus waxaa la yahaa adigu waa taqaanaa diinta carabigaa taqaanaa dayuus waxaa weeye ninku hadduusan maalkiisa iyo naftiisa iyo gabadhiisa uusan cadow iyo sharaf xume hortiisa ku xumaynayo uusan ka siqsiqayn waa dayuus runtii dayuuskaasi waa jira waana ka horgalka iyo waxaa lamida maxaad shacabka khaatumo kula tahay shacabka khaatumo ee adduunka dacalladiisa jooga ee qurba joogta ee sharafka leh iyo gabdhaha guuta koowaad ee sharafka iyo magaca leh ee weliba khaatumo aad iyo aad ba horta u hambalyeynaya waxaana ugu hambalyeynayaa sharaf iyo magaca waxaana jecla oo aan leeyahay war guushii wax yar baa ka hadhay ee midooba midinta islaamka iyo ta dhaqanka iyo ta isluubta mid walba waxay idin faraysaa in aad mataqaanaa midoodaan iyadaana diinta iyo sharafka iyo ajarka iyo akhlaaqda ku jirta yaasaan faray aad baad umahadsan tahay daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena dhabaal t v oo alaaba si toos ka yimaada bariga sacuudi arabiya gaar ahaan barigiisa damaam maanta hoyga stuudiyaha waxaa marti igula ahaa cabdisalaan maxamed faarax cabdisalaan hayden oo isagu safar dheer uu kusoo maray deegaanada khaatumo iyo weliba maamulada dhinacyada ka xigaba iyo warbixin kooban oo inaga siiyey waxaan aad weliba haddana si toos inooga yimi magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama si uu shacabka khaatumo ugu soo gudbiyo wixii xog ah oo meesha kala kulmay waxaanu mar labaad kaga mahadcelinaa kulankaaga cabdisalaan aad baad umahadsan tahay idinku mahadcelinayaa bariga sacuudi arabiya magaalada damaan dhowr jeer sida sharafta leh ama odaynimada ay ii soo dhaweeyaan waxaanse aad u jeclahay qurba joogta baalaha adduunka joogta khaatuma wax yar baa hadhay ee halla midoobi aad baad umahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu